اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم إليك نرجع. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa farxad weyn ii ah caawa inaan goobjoog u ahaado, ilaahayna subxaana wa tacaala cumri ii siiyo inaan ka qayb galo oon goobjoog u ahaado laba kitaab oo kitaabaha loo yaqaano al-ummahaat as-sitt oo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam gudahooda lagu ururiyey ama inteeda badan khitaamkooda iyo gabagabadooda iyo xafladooda iyo maamuuskooda inaan goobjoog u ahaado farxad weyn ayay sida dhabta ah. waxaa yeelay wax la maamuusa wax sahlan ma ahan. waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayru mawadi ahara, ahaartiisii iyo raadadkii uu ka tagay, aqwaashiisii, afcaashiisii, waxyaabihii isaga hortiis lagu sameeyey uu nabigeena u qiray oo taqriiraadka loo yaqaano, iyo raggii iyadoo saafi oo kala maran oo daciifkeedii iyo saxiixeedii iyo saliimkeedii iyo saqiimkeedii kala saaran raggii noo soo guuriyey oo al-aima asitta ay ka mid yihiin iyo shuyuukhdoodii. in caawa aan maamuuskaas joogno farxad weyn baa ii tahay. ilaah kumaha subxaana wa tacaala. sidoo kale inaan la mushaarakeeya culimadayda iyo mashaaikhdayda fudalada ah, sheekh muuse iyo sheekh aadam iyo sheekh cabdiqaadir, ayadna farxad intaa kasii weyna ii tahay sida dhabta ah. ilahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nawaafajiyo lima yuxibu wayardaa min alaqwaali walafcaali walacmaali walquluub. kelimada aan raba insha allah tabaaraka wa tacaala inaan idinla wadaago, naftaydan aan idin sii mariyo oo iyada aan ku bilaabo, waa kelimada cilmiga iyo ahamiyadda uu leeyahay. cilmiga marka cilmi la yidhaahdo waa cilmiga shareicada asal ahaan. cilmigan kale waa cilmi tabac ah oo isaga ama u khidmeeyo amaba mararka qaar u gogol xaaro meelaha qaar oo cilmiga sharciga looga baahan yahay, mararka qaar wasiilo u noqdo ama xataa adduunyadii lagu dhaqdo. laakiin cilmiga dhabta ah oo ilaahay u ammaanay subxaana wa tacaala, rasuulkiisa u ammaanay sala allahu calayhi waaalih wasalam, caawana khitaamkiisa aan u fadhino iyo gabagabadiisa iyo qalinjabintiisa insaca tacbiir, waa cilmiga cilmu lkitaab wasunna. alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu wamaa siwa dalika fawisaasu shayaaiini weyaan. cilmigaas marka ahamiyadda uu leeyahay waxaa ugu filan in rabbigan subxaana wa tacaala uu isbarbar dhigay dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka ahlu cilmiga aanan ahayn. qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun. nabi alla waxaad tidhahdaa dadka aqoonta lah iyo dadkaan aqoonta lahayn miyay siman yihiin? qofka kitaabka alle kor ka yaqaano haddana dujinayay iyo qofka faatixada ay dhib ku tahay ma siman yihiin? ma sina. habeenkii iyo maalintii ma siman yihiin? ma sino. mugdiga iyo iftiinka ma siman yihiin? ma sino. qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab. dadka cuquusha cilmiga xambaarsan u saaxiibka ah kuwaas ayaa waana qaato weeyaan. marka dadka ahlu cilmiga ah iyo dadkaan cilmiga lahayn abadan ma sina, mana wada dhowo. tacalam falaysa almaru yuuladu caaliman walaysa akhu jahlin kaman huwa caalimun. adiga ayaa lagula hadli oo anaa liila hadli oo basharka odhan lala hadli oo waxaa leey war waxbara oo aqoon yeela oo diinta alla bara subxaana wa tacaala. qofka isagoo aqoon lama dhasho. ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya. adinkoon wax aqoon lahayn ayuu rabbi subxaana wa tacaala hooyadiina calooshooda idinka soo saaray. markaasaa maqalkii iyo araggii iyo qalbigii aad wax ku baran lahaydeen
ood wax ku arki lahaydeen ood wax ku fahmi lahaydeen وربي إذن سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ساس ربي الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام علمك فضائشيس هي قيمها إي بوسك وجوغ كل يبقى تنظير إي أحاديثتيس إي آياتيس إن الله الشيغو وحنو مرين وح بدن بقى حلقة على الشيغ كوبتنا فدين إن بدن وان مقلني لكن مهمته وحيته قفك ورمقشيه مكو عمل فش مقشيه مبرته maqashaya qiira iyo hinaasa iyo masayr markuu gelisay markuu qof kitaabka alla xifdiyo axaadiista nabigeena uu xifdiyo jawaa'iz la siini adigana aad inta ayada ka faa'iideysanin arinta ayada ma kugu bixisay inaad talaabo qaado oo horay u socoto ma kugu bixisay taas isweydiis mudan nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo dogsoontihiin cilmigiisa wuxuu leeka ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala ood garanaysaan qalbigiisa inta la jeexay la obareeshimay ama la qalay kadibna la dhaqay ma uu zamzam lagu dhaqay xikma iyo iimaan laga buuxiyey cilmi oo dhan lisugu geeyey waxay min allahi loo keenay nabigeena ayaa ilaahay wuxuu amar ku siinaa subxaanahu wa tacaala inuu cilmiga inuu alla kordhiyo weydiisto jidkiisana inuu maro waa ku jirta waqul rabbi zidnii cilman haddii cilmiga uusan fadli kale aan loo sheegin ilaa hadihi lmanqaba lakafaa intaasaa ku filnaan lahayd in ilaahay uu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhaahdo وقل رب زدني علما نبي الله وحتى هذا ربي وحدي كرسا علمي أقون معرفة إن أذيك برته أو كتاب هذا برته أو حقوق هذا برته أو حبك هذا برته أو الله واحد سود جس أم برته إن العلم يجو إلهي يكر لي يا نبي الوير صلى الله عليه وآله وسلم هدينا مع حسال الوير أنا مركب محن وطن وقل رب زدني علما ليل نهار إن أتهجنا ودعاء أرادوا بدل ولي خاصة طلبة علمك الرجع أهل علمك وعلمك برته هنا الدعاء سأدو دانا ويان لأن النبي محمد باسيقون يهان لو غشري أنا قلنا وانفرنا وقل ربي زدني علما علمك فوائد أوليه إيه بوساسك وجوغا لما كوبي كرا جندون أيانا أمان تنسادك سنتين هل كان وحنا فريسيي ونعاوى أننا أسوق بحني أذن كان أضفر لذان إن شاء الله تبارك وتعالى وجندون warjannada marka jidka fuuda oo markiiba qofka si toos ah u gaari kara ma idin sheega oo nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam wa taqanani min hasusiya nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam fima akhrajahu al-imam muslim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah qofki jid qaado jidkaas mid dheer oo muxuu ahaa loo xareeysta ha noqdo ama mid dhow oo intaad gurigaada ka soo baxdo masjidka aad soo aad ha noqdo oo qofka cilmi uu ku dalbay حد ما الضلبة ما سميه إلا هدو سميه إلهي سبحانه وتعالى وحو يسره سهل الله له به طريق إلى الجنة جنة جد أدو مرض إلهي ويسره جنة أنا كل بتهي أو تهبين كي لهردي الآدة هيلتان كذا إيرهادين تهذا نار تأتك عربيسو طريق وفضت أو نار لو قبت بعد الجنة لو هلا وعلمنا الشريعة قف كينو برتا كتابك الله يا أبو هري إنو برتا سنة النبي كان أوبرت صلى الله عليه وآله وسلم فرائش اللي جرب أوبرته علمي قاس وقيب كقاته وما أوتيت من علم إلا قليلا عندي أريك علمك لما أركه لكن إن أذيك محوها كو أنفع دنيا آخر قفك وإن علمك إلهي كقات سبحانه وتعالى وحيابها بشارة والنبي كان ونقول بشارع عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح النبي كان وحوله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى إيه ملائكتيزة كرام تبرردة إيه السماوات أنت كسوغن إيه أرلضة أنت كسوغن حتى قراجة oo godkeeda ku sugan iyo xataa kalluunka ama malayga badda ku jira waxay dambi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiiyaan qofka cilmiga iyo khayrka dadka bara isagii ayaa intaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dambi dhaafi uu naxariisani darajo sare ayuu gaarsiini uu jannayni alfirdows alla ayuu siini taajul waqaar ayaa madaxa loo suri خير بدن أي ربي سيني سبحانه وتعالى أنت كانوا يدعوين يان ملائكتي سماوات أنت جوكتي أنت دولك جوكتي قرآن جدي ورب هذيك كسوقات أنت قرآن جاء دونك إلهي وخلق سبحانه وتعالى تضبط قارض أنت هذا شنخر أي حاجة تضبط هذا اللورج تضبط قارض أنت قرآن جاء كسوقا أي قف كان طالب علم وما أنت مسجد كان جوجا وحديثنا النبي قال أفدي صلى الله عليه وسلم أما تفسيرك أفدي أما خيرك أفدي اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه يكليهن ولقى ماذا حاضر بسرعة
بل تصور بيقات بليون ميقات تريليون أو قرآن جاتوك كنو أنت صدق بلا يلا كو يدين سبحانه وتعالى والدنبيلا أنا هنا يجا سيدو كلا أنت كلونا أدونك إلهي وخلقي وبدأ كسوغان أي دنبيلا كو يديني إلهينا سبحانه وتعالى فضلك سوية هي وحول بكسيني ملائكة إلهي سيد أسوأ كلا الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمنون إخواني الكرام فضلك قفكو ديقي واي قفكو فضلك ديقي واي إلهي ما ديقاي سبحانه وتعالى واحد ديق الله ما أركو سيدا نبتأ قفو الله سبحانه وتعالى نحريس تزقلان سيني أو ملائكة الله يدعوين نمانتو أو أهل السماوات كلنا يلو بريان وأهل الأرض أيضا ألو بريان أو كلونكي إيا قرآن جدي ألو بريان قفك أساقا إنتاس هدي أي ديق ويد محد ديقي إلهي وعنك برينا سبحانه وتعالى يقول من معلمي الناس الخير استبشر يا شيخ عبد القادر يرجع أهل علمك وضدك خير كبرة بشارة بس هذا قاضي أرضينا أقعد أيجنا إن شاء الله تبارك وتعالى معلم الناس الخير نقونا بإذن الله عز وجل إخواني بشارة بس واحد كوين بل أذنك الراديو وإيجو فضلك علمك وليه وحيابها عدينا وحاكمده عمل عن علم لهين عمل عن علم لهين لما أقبل لذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله وحقوبها باستباب مشهور كالتقانين باب العلم قبل القول والعمل إن علم لا يش أنت هذا قول كل أواقين خير فعل خير أنا سمين إن هذا علم ويا واحد كل أواقين واحد سمينيس أيوب باب يستي مركز وحسود اللي قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وحد أقاتها وضبرتها إلى الله حق الوعبد وسنجرين معبود الحق والله سبحانه وتعالى أهموين كدبنا مركز أقوانت أيالة استغفار لأمو أي ربي الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام أيها الأحباب طريقة اسمك وطريقة ولا حي وطريقة لما إن المرنا أما الضوب أن صارنانو علمنا أن أقابيسنانو أما أن طلبة العلم أقابيسنانو أما أن ضد محوها عامة المسلمين أقابيسنانو أما أن يرانا أما وينانو أما رجع نقنا أما ضمر نقنا طريقة سوى طريق والنبي قال نجح عليه الصلاة والسلام فضل يسمع النوش هاي ربي قال قبل ذلك وأرنت وحبضا وكهل إنما يخشى الله من عباده العلماء عدة الله قبت وبقيس وقفك أقنت أولى إله سبحانه وتعالى فمن كان لله يعلم كان به أتقى كان له أتقى قفك إلهي كاغا أقوم بضن إستغى يا الله كاغا بقي تام سبحانه وتعالى أصل أهم وأساس ضد أقوم إله أولى سبحانه وتعالى لكن عملك كوي راضي ويجرا وكوى ما ننت قيامة خلقك هرتوضا وليب نار جهنم قده هذا لغو فضحين دون قالدي يا منافقينتي يا هلاركي كلا دن ay ku soo wada aruuri doonaan in kala ku dhacay wax ka noqdeen ilaahay baan ka barinay inuu naga badbaadiyo waa kuwa cilmiga yeesho cilmigooda aan ku dhaqmin oo cilmigooda muxuu ku takrifalay nasal Allah salaam wal aafiya ikhwani kiram cilmiga marka fadaa'ishiisa lama koobi karo cilmiga fadaa'ishiisa lama koobi karo waxyaabaha cilmiga fadaa'ishiisa waxa kamid ah qofka aqoonta aan lahayn qofka aqoonta aan lahayn hadii cilmi aan leeyahay ku farxi فرح يقولك اللعب نين هذا إسكت جاهل أدي أتر الله يا كأقوم بدن فرحت يقولك لا بدني صور ما هذا أنت إذا صو ما جرت نين القرآن في سنة بالله الله قرآن كم حتى كان أنتوا فاتحة جبي أدي أتر الله قرآن كم حتى كان فرحت يقولك اللعب وكلا بدني وما أنت نين كياب الله وير 100 درجتين ساسو دي سيدو كلا قفك علمي الآن أهنا هدي جهل الوش وكعرر بك وحراقي ورمنا جاهل ما أنا وحبه وقيد أنت سأمان وغفلا هدي مربع علمي الآن كحناقين علمي الآن أنا أهنا علمي إنه ولا شيء أنقول فرحين أو الطبيعة ده يجيب الذي بنادنك أي تاي علمي قوينا كنت دان علمي قوينا الحوكس هرنا علمي قوينا وقت جن جلينا قف كان هدو السجوا من علمي قسيو وحي وكاسية هدي النص كاسي سنة واحدة دبع وكاسية وما أوتيت من العلم إلا قليلا علمي أنا كنت دان له علمي أنا لكم ما جارو تمني قف الله علم ما اسكبرت الله الشيخ عمر العلم بدنا الله الشيخ هبل علم بدنا وابد عبد القادر علم بدنا كل قد ما سعونيس كما ايمانين اد بالودي ساس قار وحا روغغي هوس لوها ايام محوها وحفو شيء جيلا كبتيس لوقتيس هوس عقته وحفولا يا فلسي لا افديين قار وحا لا يابا لو صاحبين كود ولغود اينا كساحنا ما 6 ساعه او يساو سو جدين لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر هاو ملايين المجد إيه علمك إيه وحيابهان أقوانتان ومدى يحنبارسان تاي
timir aad intaad aayar la soo baxda aad weli tanbufta iyo tan kale aad kala soocani ood aayar ma ahan iska laftuuraysa ma ahan lan tabluqa almajda meel sara cilmi kama gaaraysid xataa talcaqa asabra ilaa sibir aad ka leefleeftid waa shayga la dhadhamiyo shayga ugu kharaarka badan sibirka aan dadaalna marka aan dhexda xiranno yaraan i weyn ma lahan waxaan kusoo gabagabaynayaa rabbigan subxaana wa tacaala malaa'igtiisii 5 daqiiqa harsan weli weeyaan waxaan kusoo gabagabaynayaa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala ood ilaahay doortay ayaa cilmi dartiis iyo aqoon laga badiyay awgeed ayaa nebi aadam calayhi salaam abuna ayaa laga saramariyey wacallama aadama asmaaa kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا مقعيدا وحيابها ماشي ضوبني شيء ويشيء وايد كدبنا ربنا سبحانه وتعالى نبي آدم أي لوير أنبئهم بأسمائهم وشك مقعيدا شيء كان هذا اللي قبر يتقانوا إله قبر سبحانه وتعالى وشك فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون حي كانت أنت أيضا هيك إن ملائكتي أسجد لله أو يسجدان إلا إبليس أو ملائكة ده جوا الملك هين كان من الجن ففسق عن أمر ربه مرك إخوان الكرام علمي هل كاس يوقف الجارسية لذلك ربنا سبحانه وتعالى ضد أنبياء ديسة حتى علمي ديريئة وعلم الشريعة هنا أيالا بري نبي نوح أوكله علم السفينة سيد دون له جاء الله بري نبي داود عليه السلام علم الدروع كاشانكا وحويان habka loo sameeyo iyo seefaha la baray nabi ayub nabi sulayman alayhi salam mantiqa tayr shimbiraha say u hadlaan la baray hadalkooda inuu fahmo iyo waxyaabaha xayawaanaadka qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu la yash'urun fatabassama ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني ما hadalka intuu fahmo ayuu kadib muusoni markaas uu rabbi oo nicmada adiga shay inaan kugu shukriyo waafaji إخواني الكرام علمي مركب بوسكاس المنزلية يوجوها هل قضب كسر جبينا يا أو قضب كأه علمي يا برت مدتك يرير أو طبعا جريالك طبعا الشنك دتك جرا لبعض جريالك بس يا برت مسه قفول بالعلم ولا غربا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة علمي إلا الضلبة قف كستو مسلم أما رجح النقطة أما ضمها النقطة فرض يوكيه نبينا عدينا صلى الله عليه وآله وسلم سيدا ماها marka xaalada nooca tahay dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan aniga 50 sano gaaray 40 sano ayaan gaaray 30 sano ayaan gaaray 60 sano ayaan gaaray 70 80 ayaan gaaray cilmi aan baran kara arabkii aad kaaday arin sax maaha al-imam al-bukhari wuxuu fi sahih ku soo arooriyay inuu yiri sayyid umar radiyallahu ta'ala warda ta'allamu qabla an tusawwadu war cilmiga barta intaanan madax lidin ka dhigin oo dad madax aadan noqonin cilmiga barta saas ayuu muxuu ahaa yiri markaas wuxuu leeyahay al-imam al-bukhari alayhi rahmatullah wa ba'da an tusawwadu intaas ku daray asaa ku dari marka sayid lidin ka dhigood madax noqotaan weynataan ayana barta wuxuu ku cilaynayaa maxaa yeelay saxaabada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam cilmiga waxay ku xambaareen intooda badan ayagoo aad u weyn al-fudayl ibn iyad rahimahullah ninka taqaaneen oo zaahidka ah oo caabidka oo faadilka ah oo taqiga ah oo warac ah oo faqih ah ninka asaga ah meesha soo marad garanaysan jidgooyo ayuu dhigi jiray burcad ayuu ahaa markaas oo habeen isagoo guriga dhici ayaa wuxuu ka dhex maqlay gurigii dhaxdiisii nin qiyaamo leyl u taagan alam ya'ni lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq markaas aan intuu yiri ayuu muxuu ahaa tooba keenay soo noqday gabagabadii marka rag badan oo aimada taqaanaan ayaa iyagoo weyn cilmiga bilaabay waxa kamid al-fudayl ibn iyad faqihas alimka waxa kamid ibn hazm al-andalusi oo saaxib al-muhalla ninka taqaanaan isagoo nin weyn oo da weyn kullu waxa soo arooriyay al-imam al-dhahabi ayaa fi siyar kusoo wada aroorina isagoo weyn ayuu cilmiga bartay sidoo kale al-izz ibn abd salam sultan ulama sidoo kale waxa weeyay isagoo nin weyn oo aad u da weyn ayuu bartay al-imam al-kisai qurrada way yaqaanaan isagoo nin weyn ayuu muxuu ahaa quraanka iyo qiraa'aadka cilmigaas bartay الحارث بن مسكين الإمام النسائي نينك ومحوها سي غير مباشر حوار انجري او تقانين او شيوخ دي سرق وعام سما كميدا سيدو كلا سو وين ايو برتي علمي مركا وينان مالها لغما ويناد ولا ويناد علمي الإمام أحمد بن حنبل ايا gabadhiisa waxay ku tiri cilmiga ilaa gormad wadaysa markaas wuxuu yiri meel mahdi
ila lahd markii muxuu ahaa anuga dhabta u saaran yahay ilaa muxuu godka laga geeyo oo ilka laga dhig inta ayada qofka cilmiga inuu wada yaa ikhwaan kiram loo baahan yahay cilmiga marka waa nicmo aad u weyn oo ilaahay u nasiyay aan dhaxdu xiranna aan ku dadaalna waqtigeena aan gelino waqtiga aan social media ku bixinayna waqtiga aan muxuu ahaa hadallada aan macna leen ku bixinayna waqtiga aan qaxweynta ku bixinayna waqtiga aan fadhi ku dirir ku bixinayna waqtigaas anagu naga go'an waqtiga aan ka faa'iideysano oo cilmiga shariicada aan xambaarno ilaahina subhanahu wa ta'ala aan kabariyana ismaa'il husna wa sifatul ula inuu nasiy cilman naafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala rasul mustafa